بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال كستو aad joogtaan baa allaha wadala dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronaviruska iyo cudurrada kaleba waa maalin isniina 8 bisha December 2020 cudurka coronavirusku waa uu jiraa fiditaankiisa iyo weliba fayrasyada kale dhinaca kalena talaaladii ayaa laga bilaabay meelo badan oo qaaradda Yurub ay ka mid tahay iyo weliba Latin America taasoo loo arkayo dagaal xoog leh in lagu bilaabay cudurka coronavirus mar haddii talaalkii la helay wadamada reer Yurub ayaa xaddii shalay waxay ahayd maalintii ugu badneed ee wadamo badan oo reer Yurub ah ay dhammaantoodba wada bilaabeen talaalka dadkooda iyadoo loo qaybiyay talaalka guud ahaanba 720 wadan ee ku jira midowga Yurub arrintaas waxaa ka hadashay haweeneyda madaxweynaha ama gudoomiyaha ka ah midowga Yurub oo lagu magacaabo Ursula von der Leyen taas oo sheegtay inay tahay midnimo iyo wadajir u keenaysa reer Yurub iyo dagaalka ay ku bilaabeen cudurka coronaviruska waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in qof kasta oo reer Yurub uu istilaalo si looga adkaado loogana guuleysto cudurka coronaviruska wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa dalbaday marka la fiiriyo talaalada kala duwan ee shirkadaha kala duwan laakiin waxa ay ka siman yihiin inay ku wada ballameen in dadkooda dhammaantood reer Yurub ay wada talaalaan marka la fiiriyo dalkii ugu horeeyay waxa uu ahaa dalkii Sabtidii bilaabay wadanka Hungary oo laga bilaabay isbitaal weyn oo lagu magacaabo Delpesti Central Hospital oo ku yaala wadankaasi Hungary iyadoo dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalkaasina uu ahaa dhakhtarkii ugu horeeyay ee sheegay inuu diyaar u yahay tusaale u noqdo bulshada inteeda kale Slovakia ayaa iyaduna bilowday talaalka oo ka mid ah wadamada lagu magacaabo reer Yurub oo ah kuwa iyagu markaasi u diyaar garoobay cudurkuna aafo weyn u geystay marka la barbar dhigo wadamada kale ee reer Yurub dalka Jarmalka ayaa isagu ka mid ah wadamada bilaabay talaalka iyadoo uu hadlay wasiirka dhinaca caafimaadka ee wadanka Jarmalka Jens Spahn oo sheegay inay laga maarmaan tahay in lagu farxo oo ay tahay maalin quman iyo waqti fiican mar haddii la doonayo in la dhameystiro oo dagaal lagu qaado cudurka coronaviruska waxaa kale oo jira oo hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga Luigi Di Maio oo sheegay in dalka Talyaaniga dadkiisa looga fadhiyo inay talaalka qaataan si aynu dib u helno buu yiri xorriyadeennii iyo wanaaggii aanu ku joogi jirnay mar hadduu na aafeeyey cudurka coronavirusku wadamada reer Yurub marka la fiiriyo guud ahaanba aafo xoog leh ayay ka heleen amaba ay ka mutaysteen cudurkan coronaviruska marka la fiiriyo mowjadiisii koowaad iyo iminka mowjada labaad ee ah koronihii ka bilowday dhinaca dalka Shiinaha iyo waliba qaybaha kale ee UK iyo South Africa laga arkay laakiin ku baahay meelo badan oo Yurub ka mid ah marka daba la fiiriyo reer Yurub waxa ay dalbadeen ilaa iyo 2 bilyan oo doos oo talaalada kala duwan ay ka dalbadeen shirkadaha kala duwan ee iyagu sheegay in talaalada ay diyaariyeen oo qaarkoodna la ogolaaday kuwa kalena aan la ogolaanin reer Yurub guud ahaanba maalinta cudurku uu bilowday ilaa maalinka maanta waxa uu ku dhacay dad gaaraya 4 milyan oo ruux waxaana reer Yurub cudurka ilaa haatan uga dhintay 335,000 oo ruux UK marka la fiiriyo waxay ka mid tahay wadamada dadaalada xoog leh ay ka jiraan oo dadka si aad loo xanibay weliba ciidii Christmaskana sidii la rabay dadku aanay isugu tagin iyadoo la eegayo dadka in la kala fogeeyo gaar ahaan England marka la fiiriyo tusaalena loo soo qaato magaalada London ayaa waxay tahay magaalo weyn oo ka tirsan England aana magaalo madaxda taas oo la arkayay maalmihii ugu dambeeyay qoliyaha ka shaqeeya gaadiidka gurmadka degdega ee ambulance inay aad u howlanayeen ama ay u mashquuleen waxay tusaale u soo qaateen London Ambulance marka la fiiriyo 26 bisha oo ahayd maalinta ay ku magacaabaan Boxing Day waxay sheegeen in maalintaasi dadka soo wacay ambulance London guud ahaanba ay gaarayaan dad ka badan 8,000 oo ruux oo ah tiro aad iyo aad u fara badan marka la fiiriyo lana barbar dhigi karo maalin kamid ah maalmihii ku jiray bishii Maarch ee horaantii cudurkani markii uu guud ahaanba bilowday oo ahayd 16 bishii Maarch oo tirada soo wacday ambulance London iyo tirada 26 December ay ahayd to iyadu isu dhiganta waxaa maamulayaasha caafimaadku dadka ay ku sheegayeen inaanay wicin saddexda lambar ee 999 oo ay wacaan 111 dadka 999 wacayaan ay ahaadaan dadka xaaladoodu ay khatarta tahay mar la wareystay qoliyaha ka shaqeeya gurmadka ee ambulance waxay sheegeen mararka qaar markii dad la qaado ee la geeyay isbitaalada inay ku qaadanaysto ambulance in laga dajiyo isbitaalka lagu wareejiyo ilaa iyo 6 saacadood taasoo macnaheedu uu yahay sariiraha aad u yaraa oo aanay suurtagal ahayn in dadka la geliyo isbitaalka gudihiisa dhinaca kale ambulance qoliyaha ka shaqeeya waxay sheegeen qaarkood inay ku dabiibayeen dadka ambulance dhexdeeda oo loogu imanayay maadaama sariire aanay jirinin
arrimuhu aad bay u cakiraayeen waqtiyadii ugu dambeeyey tan iyo intii uu bilowday fayraska kale ee isagu ah midka laga arkay UK iyo weliba South Africa oo la sheegay inuu si xawliya u socdo marka loo fiiriyo isqabadsiinta boqolkiiba 70 uu ka dheereeyo kii hore ka bilowday Wuhan ee dalka China. aad iyo aad ayay dhibaato u ahayd marka la fiiriyo dadka iyagu isbitaalada tegaya oo loo arkaya qaarkood isbitaalada halka lagu dhex socdo in la dhigayo dadka mar haddii la waayey sariiro dadkuna ay aad ugu baahnaayeen in ay tagaan isbitaalada mar haddii dhibaato xoog leh ay ka muteen cudurkan coronaviruska ee saameynta xooggala ku yeeshay. UK marka la fiiriyo guud ahaanba waxaa laga arkay 24 saac ee ugu dambeeyay dad aan ka yarayn 30,501 qof waxaana England kaliya cudurka u dhintay ilaa shalay 316. Scotland iyo waqooyiga Ireland lama soo gudbin maadaama ay ciid iyo fasaxyo ahayd laakiin Wales xaggeeda 70 ruux ayaa axadii ka dhimatay. marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba tirada UK cudurka uga dhimatay maalinku bilowday ilaa maalinka maanta waa 7,752 iyadoo warbixinadu ay sheegayaan tiradu intaas inay ka badan karto laakiin mar walba lagu dadaalayo tirada la hubo ee saxda ah ee dadka cudurka coronaviruska u dhintay ee UK in la helo oo la xasiliyo. marka la fiiriyo qaybtan viruska ee iyagu UK laga arkay bishii September iyo weliba South Africa ayaa waxay tahay mid xawli ku socota sida dhaqaatiirtii saynisyahannadu ay sheegeen dhinaca kalena weliba aafeynaysa oo ku dhacaysa dadka dhalinta yar marka la barbar dhigo kii ka bilowday Wuhan ee China oo u badnaa inuu ku dhaco dadka iyagu waayeelka ah. guud ahaanba UK xaaladeedu ma qumana laakiin dadka aad iyo aad baa loo kala ciyelay meelo badanna waa la xiray taasoo weliba loo arkayay in lagu dadaalo dadku inay mar walba qaataan awaamiirta ka imanaysa maamulayaasha caafimaadka iyo saynisyahanada oo ah in aad iyo aad la isu ilaaliyo sanka iyo afka in la xirto in la kala fogaado gacmahana mar walba in la dhaqo aadna loo feejignaado. Ireland marka la fiiriyo waxa ay dalbadeen Pfizer iyo BioNTech talaalkeeda taasoo loo keenay qaybihii ugu horeeyay marka la fiiriyo Ireland. waxa wasiirkooda dhinaca caafimaadka Ireland oo lagu magacaabo Stephen Donnelly uu sheegay in talaalka oo diyaar lagu bilaabayo dadka reer Ireland maalinta Arbacada ah ee saa dambe taasoo ujeedku uu yahay in dadka lagala tacaalo cudurkan coronaviruska iyo dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay. reer Ireland marka la fiiriyo guud ahaanba dadka cudurku uu ku dhacay iyo dadka uu uga dhintay marka la barbar dhigo qaybaha kale ee Yurub wadamo kamid ah aad bay u yar tahay taasoo la sheegay Ireland guud ahaanba dadka cudurku uu ku dhacay inay gaarayaan 373 ruux dadka Ireland cudurka uga dhintana guud ahaanba waxa ay gaarayaan ilaa iyo 2,100 iyo weliba 92 ruux. marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba saameynta cudurkani waa mid runtii aad u faafaysa gaar ahaan qaybtan labaad ee viruska aadka xawliga dadka ugu dhaca ee laga arkay asal ahaan UK iyo weliba South Africa oo UK weliba ay leedahay dhinaca South Africa ayuu ka yimid. wadamada reer Yurub ayaa laga sheegay qaybahan kale ee viruska iyadoo tii horeba ay qabeen waxa kamid ah wadanka Sweden wadanka Switzerland wadanka Denmark wadanka Holland wadanka Talyaaniga wadanka Jarmalka wadanka Faransiiska wadanka Spain iyo asal ahaan UK oo laga sheegay iyo weliba South Africa. dhinaca kale wadamada laga arkay qaybtan cusub waxa kamid ah dalka Canada dalka Japan iyo weliba dalka Australia. saynisyahanada iyo weliba dhaqaatiirta adduunka waxay sheegayaan inuu aad u faafi karayo oo uu ku faafi karayo qaaradaha kala duwan ee dunida sida cudurkan qaybtiisii hore ee ka bilaabatay Wuhan ee China ay ugu faaftay ilaa iyo 190 wadan oo ka tirsan dunida. wadanka Mareykanku waxa uu kamid yahay wadamada sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeeshay iyadoo weliba dadka uu ku dhacayay maalin walba 200 kun ay ka badnaayeen dadka u dhimanayana ilaa iyo 3 kun. arrintaanuna waxay si aad u sii badatay tan iyo 26kii bishii November oo xilligii ay u dabaaldegeen Thanksgiving-ka Mareykanka oo ay markaa dhagaha ka fureysteen awaamiirtii iyo taladii ay soo jeediyeen maamulayaasha caafimaadka iyo weliba saynisyahannada oo ahayd inaan la safrin xagga duulimaadyada iyo inaan gawaari lagu socon oo la isu tago oo la is ilaaliyo laakiin dadku ay isu tageen oo ay wada ciideen kadibna maxaa dhacay bishii la oran jiray November aakhirkeedii iyo December ta aynu ku jirno aad iyo aad ayuu faraha uga baxay cudurka coronaviruska iyo wadanka ee Mareykanka. waxaa la filayaa talaaladii oo la bilaabay xagga Pfizer iyo BioNTech iyo weliba Moderna in ay wax ka tari doonto laakiin tirada dadka Mareykanka aad u badan oo qiyaastii lagu sheegay 328 milyan oo ruux xilliga la gaarsiin kara talaaladu inaanay dhaweyn oo ay muddo dheer markaasi ay u baahan tahay.
dadka 20 milyan ku dhow ee cudurku uu ku dhacay Mareykanku aad bay u fara badan yihiin dadka cudurku uu ka dilana 333 kun ay kor u dhaafeen taasoo marka la fiiriyo reer Yurub guud ahaanba dadka cudurku uu uga dhacay 14 milyan Mareykan kaliya uu ka badan yahay xagga dhimashadana Yurub iyo Mareykanku ay guud ahaanba ay iska daba dhow yihiin waxa daba la eegi doonaa talaalada kala duwan ee la bilaabay ee shirkadaha kala duwan ay soo saareen iyo kuwa la ogolaan doono iyo fayrasyadan kala duwan ee isbarbar socday cudurka coronavirus-ka iyo saamaynta uu guud ahaanba ku yeesho bulshada caalamka marka daba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ay cudurka coronavirus-ka waxa fududeeya shirkadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa shirkadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo waliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528277 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle hay soo dhawaan yaana ku soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus-ka oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah